way adkaan doontaa inaad aamintid in tuugsashadu ay wadamo badan ka tahay xirfad iyo shaqo aroor walba loo soo kaco. Mase og tahay in wadamada qaar ee dunida ay macquul tahay in qofku uu istiro mid ka mid ah xubnihiisa muhiimka ah si ay tuugsiga uga caawiso. Sida dabiiciga ah, dawarsigu ma ahan dabeecad wanaagsan, diin ahaan iyo dhaqan ahaan intaba. Warbixinteena maanta waxay daaran tahay 5 dawarsade ee ugu taajirsan adduunka oo dhan. 1. Simon Wright. taajirkan qarsoon wuxuu caan ka yahay wadooyinka waaweyn ee London ee caasimadda Ingiriiska. Waxa uu kaydsaday lacag badan oo uu tuugsanayay ilaa heer ay dawladda UK ka mamnuucday inuu tuugsado. Simon waxa sanadkii u soo xaroonaysay lacag kor u dhaafaysa 50,000 oo pound una dhiganta ku dhawaad 60,000 oo doolarka Mareykanka ah, iyadoo aan xisaabta laga saari karin in ninkan uu ku labisto dhar duug ah. waxaana uu boorar ku soo qortaa calaamado iyo qoraallo uu ku barjalacsanayo dadka isticmaala wadooyinka waaweyn ee magaalada London. Simon wuxuu sidaas sameeyay ku dhawaad 4 sano ilaa markii dambe uu xaaladiisa u kurgalay nin lagu magacaabo Olivier oo doonayay inuu ogaado halka uu Simon ku nool yahay si uu caawiyo. balse Olivier waa uu yaabay, madaxa ayuuna gacmaha saartay kadib markii uu indhihiisa ku arkay Simon oo iska furaysiina galaya guri weyn oo ku yaala Fulham oo qiimihiisu uu yahay 300,000 oo pound. dabagal badan oo lagu sameeyay dawladda Ingiriiska ninkan waxay ka mamnuucday inuu tuugsado, balse mar kale ayaa la arkay isagoo ka dawarsanaya Leicester, waxaana lagu xukumay ganaax iyo 2 bilood oo xarig ah. 2. Bharat Jain. dawarsigu waa waxaan ceeb weyn ka ahayn wadooyinka waaweyn ee magaalada Bombay ee Cariga Hindiya, balse arrinta la yaab kale ee uusan qofna filanaynin ayaa ah in tuugsadayaasha aad ka dhaxeshid qof maalqabeen ah sida Bharat Jain oo kale. waxa uu shaqeeyaa 8 ilaa 10 saacadood maalintii, waxaana uu kaydsadaa 2,500 oo rupees oo u dhiganta $32 maalin walba. sheekada ninkan ayaa la ogaaday sanadii 2015, waxaana ay qabsatay dunida oo dhan, abuurtayna hadalhayn weyn oo baraha xiriirka bulshada ah. dawladda Hindiya ayaa ninkan ka joojisay tuugsiga si aysan u noqon arrin qofta bulshada kuna dhiirigelisa in tuugsigu uu yahay wax aad u wanaagsan. 3. Aisha. waxay muddo dheer ka dawarsanaysay Jeddah oo ku taala Sacuudiga inay tahay taajirad haysata malaayiin lacaga, qofna ma uusan ogeyn, balse waxaa la daahfuray xaqiiqadeeda dhabta ah iyo nolosheedii hore inay ahayd taajirad kadib markii ay geeriyootay iyadoo 100 sano jir ah. qofna ma uusan ka warqabin hantida intaas leeg inay haysato, balse waxaa sheegtay gabar saaxiibteeda. Aisha waxay ka tuugsanaysay ku dhawaad 50 sano. Aisha waxay tuugsanaysay ku dhawaad 50 sano markii la qiimeeyay hantideedii ugu badneyd oo guryo ahna waxa ay noqotay 1 milyan. Aisha waxay ka dardaarantay in markay ay geeriyooto hantideeda iyo guryaheeda la siiyo dadka saboolka ah ee aan haysan guryaha. 4. Irwin Corey. waa xidig caan ka ah Mareykanka oo dawarsanaya ku dhawaad 20 sano. waxa uu sameeyay magac muddadii uu ahaa xirfadle ka qosliya dadka. marka uu shaqada shactirada ka fariisanayay, waxa uu shaqo ka dhigtay inuu dawarsado. Irwin waxa soo gashay 150 ilaa $250. waxaase la yaab noqotay inuu yahay samafale lacagaha uu soo dawarsado si toos ugu wareejiya hay-adaha dadka saboolka ah taakuleeya oo uu fadhigeedu yahay dalka Cuba. 5. Sambhaji Kali. aabbahan isaga iyo 4 walaalihiisa ah waxay ka dawarsadaan wadooyinka Bombay. waxa macquul ah inaadan rumaysan haddii lagu sheego in ninkan uu leeyahay guryo waaweyn iyo in weliba uu maalgashi ku sameeyay ganacsiyo hirgalay oo ku yaala isla magaalada uu ka dawarsado. si kastaba ha ahaatee, dawarsado walba ma ahan mid jiid ah marka aad joogto wadamada caalamka, laakiin marka aad dalka joogto, qof walba oo dawarsada ah ku sadaqayso wixii jeebkaaga ku jiro, maadaama ay jiraan dad baahan oo aan waxba haysan.